السلام عليكم ورحمة وإذن سلام يا ولاشين فهموا واي سو دواada waxaa idiri dadka idi fiirsada waxaa u badan meeshaan ka arkay waxaa u badan dadka oo subscribe-ka ay saarin marka waa i fiirsatiin subscribe-na ay ma saartaan sababta ma ii sheegi kartaan subscribe-ka free waay marka waxaan rabaa dadkiina i fiirsada laakiin subscribe-kan ii saaraynin inaan subscribe-ka ii saartaan insha allah free waay wax qaalin lacag idinkugu fadhiyana ma aha like-tana ii saartaan ya anoo idinkaga mahad celinayo taada kale kulligiin 47,000 oo iigu jira waxaan rabaa gambaleelkiina inaan fiirisaan gambaleelka inuu idiin shidan yahay si markii aan video aan soo geliyo uu idinkugu soo dhaco iska hubiya kulligiin walaalahay qaali waa idin salaamayaa kulligiin walaashin fahimu waaye waana caafimaad qabnaa idinkana waxaa idin rajeynaa inaa caafimaad qabtiin kulligiin qalbi jacayl galay quusan maaye codkayga leen kugu faanayaa ku dhaha ani Sweden aan deganaan jira 10 sano aan Sweden deganaa 10 sano iyo weliba dheeraad baan Sweden deganaa waan ka shaqaysanayay nolol aan caadi ahayn baan Sweden ku noolaa oo aad u fiican alxamdulilaahi rabbil caalamiin shaqooyin badan oo fiican aan haystay Sweden waxay ahayd Sweden yacni waqtiga aniga aan joogay Sweden ta hadda anigu dhagahay ku soo dhacdhacayaan oo dhibaatooyinka ka yeerayaan oo gabadha waxaan u soo galay maanta Faaduma Brambor gabadha walaashay oo Sweden joogta oo Faaduma Brambor yaa wixii ugu dambeeyay kama hadlin ani waa anagii ka hadalnay aniga qadara ka hadalnay caruurteeda marka laga qaatay haddana laba bari ka bacdi waxaan maqlooyaa laba bari ka hor waxaan maqlooyaa uurkii ay lahayd cunugii ay dhashay waa laga qaatay haddana ayadoo suxsan oo gaaskii umasha weli ila suxsan aa cunugii laga qaatay marka aan Sweden taas ma aqoonin waqtigaan joogay I don't know what's going on Sweden ta bini'aadanimada ku fiican dadka familiyada ku fiican waxaasaan joogay ma fahmin marka ma fahansani inaa reer Sweden reer Sweden waxaan rabaa inaa fahansiisaan what's going on vad är det som händer Jana, ni ska berätta för mig vad är det som händer i Sverige vad är det som händer i Sverige det är inte i Sverige men jag har bott 15 år så vad är det som händer jag vill ni förklara till mig ina isoo sheegtaan reer Sweden see wuxuu jiraa gabadha kaliya maaha dad badan baan maqlay caruurtii laga qaatay lacagihii laga goostay guryihii laga saaray kirada laga bixiyo la diiday marka maxay tahay dhibaatada ka dhacaysa Sweden aniga luqadoodii aan ku hadlaa baasaboorkoodina weli waa haystaa marka waxa waaye Sweden saan kuma ogeyn ani Sweden wadan naxariis badan oo bini'aadanimada ku fiican oo dadka kale markay wadamada kale ee edab darro sameeyaan ka celiya iyo waxaas ahaan jirtay oo sharciyada ku fiican marka aniga ma fahansani Faaduma Brambor waxa ku dhacaya inaa isoo sheegtaan aan rabaa oo i fahansiisaan teleefankayga idiin soo qoraya inaa reer Sweden inaa isoo wacdaan oo i fahansiisaan aan rabaa waxa ka dhacaya Sweden iyo Faaduma Brambor xaaladeeda marka ma fahmin ani waa wax dhibaato ah waa hooyo wax ugu xun oo hooyo lagu samayn karo waa caruurteeda laga qaato waa wax ka xun ma jiraan kulligood 7 caruura kii 8aad ilaahay ha ku xafido ilaahay ha ku badbaadiyo ilaahay samarkaaga aad na tustay ilaahay ha ku zaa'idiyo Faaduma haddaa ila soo xiriiri kartana ila soo xiriir inaan kula hadlo waa jeclaan lahaa marka ma fahansani ani dhibaatada kugu dhacaysa ma fahansani oo waliba tii hore iska daay tu cusub lagugu daray inaan fahmaan jeclahay marka qofka xaquuq buu leeyahay hooyada xaquuq bay leedahay caruurtu xaquuq bay leeyihiin marka waxa ay reasonka ay dhiibeen mindheetana Isbaaniska mindheeta reasonka ay dhiibeen oo u fasaxay inay caruurta kii
fuduq uu kaasoo yiri inay qaataan inaan ogaadaan rabaa. Faadum Bramber haddaa ila soo xiriiri karto ila soo xiriira baa gabdhihiina Sweden jooga haddaa ila soo xiriiri kartaan ii fasira ii soo xiriira. ما فهمسني يعني بان ugu xumaaday wax bani aadanimada ku jira maaha marka wax soo xudha cayaan ma garana ifahansiye please caruur waaweyn baa jirtay caruurta waaweyneed hadii la qaatay ya waxa gabadha loo daba socdo oo kii ay buluq soo siisana laga qaato iyadoo sun ku soxsan halay soo fahansiye waa idin baryaayay ilaahay waxaan kaaga baryaayay allah ka fujiyo waxa kugu dhagan allah ka fujiyo cadawga kugu dhagan allah ka fujiyo samir aad ku samirto oo aad aragto caruurtaada in lagu soo celina ilaahay ha ku tuso ilaahay faraj ha ku furo hadday jiraan wax aan ka caawin karana ila soo xiriir walaashay macaan baan ugu xumaaday waxa kugu dhacaaya baan ugu qiirooday waxa kugu dhacaaya hooyaan ahay marka Faadum Bramber ina ila soo hadashaan jeclaan ila soo xiriirto walaashay macaan bal aad igu nafisto hadaad igu nafisi karto walaashay ina wax ogaadaan rabaa wax maskaxdeeda galayso maaha Sweden aniga 15 sano aan deganaa ya oo waxyaalo aan caadi ahayn ii sameeyay oo bani aadanimada ku fiican ii sameeyay inay maanta waxa sameynayso oo dad kalena aan ka maqlay oo dumar kale aan ka maqlay caruurihii laga qaatay oo dadkii lacagihii lagu cabaadayo oo guriyihii laga bixinaynin oo waxaan macquul ahayn aan ka maqlooyaa marka reer Sweden soo wuxuu dhacayaan ina ii soo fasirtiina raba waa ii soo sheegtaan insha Allah wadraan saas iyo saas wuxuu dhacayaan walaashay ma fahansani yani ma fahmaayo wax maskaxdeeda galayso maaha Sweden aniga aan ku soo 15 sano aan deganaa saa noqotay hooyadu xaq bay leedahay caruurtu xaq bay hooyadood u leeyihiin marka waxa sababta ay mindaheetana ay u qaadanayaan caruurta u qaadanayaan waliba ay ku sii wadaan kii ugu dambeeyna ay ka qaateen ina ii soo sheegtiina rabaa please baan ugu xumaaday gabadha walaashayna ilaahay waxaan ka baryayaa oo ilaahay aan ka baryayaa ilaahay waxaan ka baryayaa ilaahay baa ugu quwad weyn alaysa allahu bi ahkamil hakimin ilaahay baa ugu quwad weyn wax ka quwad weyn ma jiraan in ilaahay kaaga soo furfuro caruurtaada gurigaaga keeno ilaahay kaaga baryayaa marka waa dareemi karaa hooyo waa dareemi karaa guri saas caruur uga qaylinayso oo cidlo kugu noqday waa dareemi karaa qof adag baana tahay waa ku arkay waan barnaamijkaadana waan fiirsadaa marka ilaahay waxaan kaaga baryayaa samarkii aanu tusisay kuwad ilaa guusha aad ka gaarayso ilaahay idankiis ilaa aad guusha ka gaarayso oo aad guulaysanayso samarkii aad tusisay kuwad Faadumo walaashay idinkana waxaan rabaa inaad u ducaysaan oo Faadumo u ducaysaan oo u wada ducayno ya inaan u wada ducayno kulligeen in ilaahay waxa dhacaaya sharka dhacaaya ilaahay ka qabto caruurteedana u soo celiyo inaan u ducaysaan rabaa walaalahay qaali baa ugu xumaaday Sweden meesha aan ku soo Sweden dhibaato kuma aragani laakiin adduunyadu way isbedeshaa adduunku wuu isbedelaa wadamadu way isbedelaan dadku way isbedelaan ya marka waxaan ka codsanayaa walaashay Faadum Bramber teleefankeega meesha ku qoraya bal ina ila soo xiriirto codkaaga ina maqlaan jeclaan hadduu ilaahay idmo walaashay qaali mar walba anaga garabka gabar kastoo Soomaaliya aniga garabkeedan taaganahay wax alla iyo wax u qaban karno oo qabanaya wax la yaabo waaye wax maskaxdeeda gali waaye wax maskaxdeeda gali waaye todobo kii sideedana ha lagu darsado marka waxaan jeclaan lahaa bal excuse in la ii sheego ina ila soo hadashaan oo bal sababta qofka og sababta Faadumo sababta caruurteeda reasonka looga qaadanayo oo loo daba socdo ina aan ogaadaan jeclaan lahaa marka anigu maskaxdeeda ma galayso marka Faadumo hooyo fiican oo egta ma aqaano ani personal uma aqaano laakiin qof macquul oo egta marka sababta ya dad ilmo waxa jira aan oo silac lagu dilay
silic lagu dilay oo gaajo lagu dilay oo aan carruurtooda hooyooyinkooda laga qaadanin ya marka waxa soomaalida ilmahooda loogu degdegaayo oo loo gurubsanaayo sidii shimbirihii oo badarka gurubsanaayo loo gurubsanaayo aniga inaan ogaadaan rabaa ilaahayna waxaan ka baryayaa faadumoy ilaahay waxa kugu dhegan inuu kaa fajiyo taasaan ilaahay kaa baryaaya oo ilaahay kuusoo nabad arwariya carruurtaadii oo nabad qabta ilaahay kaaga baryaaya idinkana u duceeyo walaashiin faataxada u mara in ilaahay cadowga iyo nacabka ka qabto ilaahay carruurteedan usoo adiyo qalbigan ilaahay u qaboojiyo maskaxdana ilaahay u adkeeyo wanaaga aan adeega aad natusisay iyo samirka aad natusisay ku sii wad guushi waa dambaysaa ilaahay idinkiis u duceeya idinkana walaashiin aad baa idiin salaamaya walaalahay qaalime wali baad joogtaan allah idin xafido subscribe-ka hala ii saaro like-ta hala ii saaro gambaleelkana taabta saa u taabta si wax walba aan geliyo uu idinkugu soo dhaco walaalahay qaali walaashin fahiimo waa idin salaamayso allah idin xafido meel waa joogtaan cadow iyo nacabba allah naga qabto asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bye bye